dhalinyaro farxadda iyo weji furnaanteeda ka muuqatahay waa arrin aad iyo aad dhiirigelin u leh dhalinyaro meel kastoo joogtana waa sidaas waxaan leeyahay hambalyo macallinka Soomaaliyeed meel kastoo uu ka joogo dalka waxaan leeyahay hambalyo waa maalintii macallinka waa maalin weyn oo runtii taariikhna leh xusuusna la waaye kumanaanka arday ee maanta meeshaan isugu timiday macallimiintoodii iyo kumanaanka kale boqolaalka kun ee kale ee maxaan ku raad dalka ku baahsan ee meel kasta joogtahay maanta waa maalin farxadeed waa maalintoodii waa maalintii xafladda lagu xusayo macallinka Soomaaliyeed waxaan leenahay macallinka hambalyo meel kasta uu joogo macallinka muhiimadda uu leeyahay oo wada garanaysaan dhalinyaroy intiina i hortaagan hadda saacaddaas ee garoonka stadium ugu soo joogta macallimiintii waa idinka wasiiradii berrina waa idinka madaxweynihii berrina adinka uu idinku dhex jiraa muhiimadda aad leedihiin inaad saas u ogaatiin waaye sida aad dalkan iyo dadkiisa aad muhiim ugu tihiin dhalinyaro macallinka marka waxaan leeyahay muhiimaddiisa aan siino xushmad iyo karaamo ayuu nooga baahan yahay inaan xurmayno nooga baahan yahay xoolo badan oon siina ma haysanno laakiin inaan weynayno macallinku inuu qofka ugu qiimaha badan dalka Soomaaliya dawladda Soomaaliya dadka ku dhex jiraahay macallinka iyo askariga ugu qiimo badan horta labada mujaahid ee jihaadka noloshooda dhan ku jiraahay waa askariga Soomaaliyeed iyo macallinka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan sidaas daraaddeed ardada dardaaranka ugu weyn oo waxay tahay in ay macallimiintooda ixtiraamaan ka dambeeyaan dhageystaan ma aha laba lagu daray afar bas inay ka bartaan akhlaaqiyaadka iyo edabta iyo maxaan ku raad dhaqanka suuban iyo berri markuu weynaado mas'uuliyad soo u noqon lahay inay ka bartaan waay dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay ballan qaaday 10,000 oo macallin in ay ku soo biirinayso bahda waxbarashada 10,000 oo macallin 6,000 oo kamida ayaa hadda shaqada ku jirta wasaaradda xukuumadda guud ahaan oo prime ministerku ugu weyn yahay iyo golihiisa wasiirada wasiirka iyo hogaamiyaasha wasiiradiisa waa in si degdega loo dhammaystiraa tirada macallimiinta aan ballan qaadnay oo dugsiyadoodiina loo diyaariyaa xarumaha tababarka macallimiinta waa inay buuxsamaan ee ku yaalla dalka qaybihiisa kala duwan oo dhan macallinkii aan tababarnayn ee fursad aan u helin in uu helo fursad tababarne wasaaradda waxaan farayaa in fursad tababar oo lacag la'aana la siiyo dalka iyo dibaddiisaba meeshii fursad laga sii kara macallinka Soomaaliyeed in la siiyo kuwa wasaaraddu ay tababartayna tababar ka sii sarreeya in la siiyo sidaas daraaddeed kuma filna 10,000 oo macallin kuma filna laakiin waa bilow haddii teeram kasta iyo sanad kasta aan intaasoo macallin ku soo kordhinno waan gaaraynaa maalin macallimiin nagu filan aan yeelanno waana yeelanaynaa iskuulaadka waa dhisaynaa tiradooda waa badinaynaa korontaa loo yeelayaa biyaa loo yeelayaa haddii alla yidhaah ardayga iskuulka intuu joogo inuu qado cunaa laga shaqaynayaayoo dawladdu ku mashquulsan tahay intaasoo wanaag ah Soomaaliya inay horumarto ardayda Soomaaliyeed jawi fiican oo ardada la midka ah oo caalamka horumaray ku nool ay ku nool yihiin ay wax ku bartaan inay ku noolaadaan ay wax ku bartaan aan rabnaa haddii alla yidhaah taageero weligiiney waa mahadsantihiin farxaddiinna iyo raynraynta aad waddaan waa wax aad iyo aad u weyn
waxaan leeyahay macallinka Soomaaliyeedna intaasaa xurmo iyo deeqba ugu filan in la ixtiraamayo ardadiisii bannaanka u taagan tahay weynaynayso macallinkana intaasaaba ugu filanba wax walbana kala weyn dhalinyaro waxaan leeyahay macallinka Soomaaliyeed ha noolaado macallinka Soomaaliyeed ha noolaado macallinka Soomaaliyeed ha sharafaysnaado macallinka Soomaaliyeed karaamaha u sanaato